madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta wadajir u dhagax dhigay dhismaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland oo laga hirgelinayo xarunta shirkale oo kaabiga ku haysa madaxtooyada Jubbaland. munaasabada dhagax dhigga ayaa waxa goobjoog ah qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubbaland oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu horreyn ka warbixiyay dhagax dhigga iyo doorka ay ku leedahay dowladda federaalka Soomaaliya inaan dhagax dhigno xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ka mid ahayd mashruuci shalay la daahfuray oo Prosperous project lagu magac daray oo dowladda Norway ay caawinaysay projectyada caawinaysa ka mid ah runtii sharaf weyn bay noo ahayd maanta inaan wada dhagax dhigno. waxaan rajaynaynaa institutionku kama maarmo xarun uu ku shaqeeyo waxayna qayb ka tahay dowladiska Soomaaliya ay qayb ka tahay oo adduunku uu caawinayo. hadda wasaaradda noo dhow iyo waxaan rajaynaynaa iyo wasaaradaha dhan hadda institutionskii dowlad goboleedyada kor bay u socdaan. galmudug baan arkayna daraada iyadoo laga dhagax furayo iyadoo la furayo xarumo badan. haddana waxaan rajaynaynaa Jubbaland ee xarumo badan way dhisatay. qaybna wasaaradda arrimaha guduhuna waa ubuucda wasaaradaha priorities kale oo mudnaanta koowaad la siinayo inay noqotana aad baan ugu faraxsanahay waayo dowladihii hoose iyo faylasha tuulo ilaa degmo ilaa xarumaha xitaa dhismo kastoo meel ku yaala meesha la rabo inuu yaallo ayay tahay. dalkii qof iyo cod buu aadayaa meesha laga maamulayo. arrintan xasilintu hadda maalmaha oo dhan aan ka hadlaynay saldhigeedu waa wasaaraddan. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo gabagabada ka hadlay munaasabada ayaa u mahadceliyay qof kasta oo ka shaqeeyay in xarun cusub loo dhiso wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland. munaasabadan dhagax dhigga wasaaradda arrimaha gudaha saad u sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lagu tilmaamaa hooyada wasaaradaha waa laf-dhabarka dowladnimada. waa wasaaradda kaliya heer tuulo ilaa heer qaran isku xirto. waa wasaaradda ay wasaaradaha kale oo dhan ku dul shaqeeyaan. ayla qof kastoo mas'uul ah iyo hay'ad kastoo meel wax ka fulinaysa cidda ay martida u tahay oo wax la qabanayso oo ku soo dhaweynayso waa maamulka arrimaha gudaha. marka haddii wasaaradda arrimaha gudaha rag sidaan oo kale ay hesho oo dhaqaajiyaan dib u dhiska iyo qarannimada Soomaaliya waa taabagelaysaa. muddada hadii joogto wasaaraddana waa kaaga mahadcelinaynaa tilaabooyinka aad qaaday isku xirka guud ahaan dalka iyo nid wanaagga lagu wada shaqeynayo wasaaradaha heer state adaa duq ah hoggaanka halka hadii marka ka tooso rajo wanaagsan baa jirta qarannimada Soomaaliya inay toosto oo ay sii socoto oo hay'adaha dawli oo adag oo dhismo la helo. marka mar labaad iyo mar saddexaad shirkan weyn oo lagu qabtay halkan oo aad u xulateen in magaalada Kismaayo ay martigeliso oo nagu sharafteen waa idinkaga mahadcelinaynaa. dowladaha nagu kaalmeynaya dib u dhiska Soomaaliya sida dowladda Norway oo kale sida hadda wasiirka xusay la rajaynaya inay gacan naga siiso xagga dhismaha ayadana waa u mahadcelinaynaa.